عدادي لعي قلوف أندمين قرايوس بانكو كوريو أنا ولي قبيرو قوقيقو عن طوغ جوغو كركيقو نحاد لهي أنا كنت يالا ولي إيو هدو كوي عدادي لعي قلوف أندمين قرايوس بانكو كوريو أبين لبدي سقلين ديقي قرح بان مغلايو ديقوه إلقو حيان ودد قمي وايجيفكا هدو قلو ملكا يدو للقي لقريريو قوذو إيهايا وضنو وحان قلب صدددو وحيني قوينا يان أنيقو وليتا مقرن أبين لبدي سقلين هيقي قرح بان مغلايو ليقو إلقو حيان ودد قمي وايجيفكا هدو قلو ملكي يدو للقي لقريريو قوذو إيهايا وضنو وحان قلب صدددو وحيقي قوينا يان أنيقو وليتا مقرن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة قيالة ميل والبو نغا داونايسان halkan waa barnaamijkeeni dunida Soomaalida oo alaaba idin ku soo gudbino dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dhamaangeyga Soomaaliyeed gaar ahaan marba waxaan isleenahay way ugu muhiimsan tahay in bulshada Soomaaliyeed la wadaago oo laga wacyigeliyo barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa xaalka dadka iyo dalka Soomaaliyeed ku sugan yahay in dhibaatada Soomaalida maanta haysata ayaan si fiican u falanqeynaynaa isla cabiraynaa isla qaadan dhigayna kadibna xalka sida aan aragna ayaan ku soo gudbin doonaa insha Allah ilaahay yiraahdo daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh waxaad xaq u yeelanaysaan inaad fikirkiina iyo taladiina inaad saxdaan wixii khaldan meeshan ka sheego wixii xal aad aragtaan inaad soo gudbisaan si bulshada Soomaaliyeed u hesho brainstorming ama maaragtay inay waagto xaqiiqda ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed runtii dalka Soomaaliyeed waa dal aad iyo aad barwaaqo Ilaahay uga dhigay oo Ilaahay maaragtay ummad uu jecel yahay wax walba uu ku manaystay ayuu Soomaali Ilaahay siiyay ummad kasta oo Ilaahay jecel yahay wuxuu siin lahaa ayuu Ilaahay Soomaalida siiyay yani wuxuu siiyay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo dhan hadayna caalamka oo dhan kaalinta ka galisaan garanayn laakiin Africa number 1 baaxadda badeed ee ugu ballaaran Soomaaliya iska leh waxa ay leeyihiin kheyraadka badeed ee dabiiciga ee inaba caadi ahayn ee caalamka oo dhan laga diidayo runtii Soomaaliya oo dhan inta milyan ay tahay kuwa shanteeda Soomaaliyeed waa shanta Soomaaliyeed ma waqooyi koonfur kaliya shanta Soomaaliyeed badda Soomaaliyeed kaliya ayaa quudin karta kheyraadka dabiiciga ee ku jirta haday shidaal iyo macdan iyo gaas noqoto iyo haday noqoto kheyraadka kale ee maaragtay sida kalluunka iyo barwaaqada kale dhextaala sabab marka dadka Ilaahay barwaaqada iyo dhulka baaxadda la siiyay ay gaajo iyo silac iyo aljaxiima iyo saxaraha ee Liibiya loogu karbaasho ama loogu qalqasho ama gabdhahooda loogu kufsado ma ay jirto ilaa inay ciqaab eeba u qoray tahay mooyaane marka shacabka Soomaaliyeed Ilaahay wuxuu la doortay dhul qani ah oo cajiib ah oo mucjiso ah oo runtii ummadii dhulka iyada ah Ilaahay ugu deeqo waxay waajib ku ahayd ما iyada inay gaajooto waxay ahayd caalamka kale oo dhan inay quudiso caalamka kale Ilaahay ku abuuray dhulka saxaraha ee beeraha lahayn ee wabiyada lahayn ee xeebta dheer lahayn ee kalluunka lahayn inay siisay taa waxa uu weelisay istiraatiijiyada goobta Soomaaliya ay ku taalo oo ah qayb maaragtay xataa qarniyadii hore boqortooyadii hore ee Xasan Shuud iyo faraacinadii iyo boqortooyadii hore ee Jaynaha iyo jidkii xariirta mari jiray yani dhulkan buntiga markii la dhahay يعني باب المندب جيبوتي إلا يو قبلده وقوي إلا يو بوصاصو إلا مقدشو مقعد الشعب اللي يجري إلا برا ودوكتين بورتقيسكي إلا يكسمايو إلا يو مومباسا إلا يتريسا يعني نقول Soomaali dhul noocaas oo istiraatiiji oo mar walba dahabi ayuu ahaa oo quwad walba oo caalamka soo baxda ay indhaha ku hayso shacabka Soomaaliyeed waxay ahaayeen shacab waa kuwii reer guuraaga ahaa way waa kuwan ilbaxnimada maanta aynu ku jirnay iyo aan soo gaarin
intaan gumaysiga reer Yurub iman Soomaalidu waxay ahaayeen dad aan gaajoonin oo aad iyo aad u dharagsan oo qani u ah oo dhaqan iyo hidde iyo xeerar Soomaaliyeed ay ku dhaqmanto oo madax bannaan oo independent ah wariyaashii Ingiriiska ee qaaradda Afrika yimid waxay dhaheen weligeen maana arkan dadkan Soomaalida oo kaleete never caalamka kaleete qofka cadaanka marka la arko waa la caabudi jiray bay dhaheen waana la ammaani jiray sharaf iyo maaragtay waa lagu soo yaaci jiray laakiin Soomaalidu markii aan u tagnay bay dhaheen sankay naga qabsadeen sanka uf muxuu ah waxaan urkiisa iyo halkaa naga soo gaaraya gabdhaha qaarkoodna way mantageen gabdhihii Soomaaliyeed يعني waxaad garanaysaa dadka Soomaalida qabka meeshay taagnaayeen boqortooyada Ingiriiska ee aad ka dhacayna meesha kaliya lagu bahdilay ee si fiican loogu karbaashay geeyiga Soomaaliyeed ay dadka Soomaaliyeedna dal la yaqaan qab leh oo diinta Islaamku dadka ugu horeysay ay soo gaadhay bay ahaayeen runtii qabriga nabiga Sayyidina Maxamed boqortooyadii Boortaqiiska markay damacday inay Sayyidina Maxamed Makka kala baxdo oo ma aragtay qabrigii nabiga intii loo dhaco la qofto dadka kaliya hor istaagay ee madaxa ka garaacay ee Boortaqiiskii afka ciid u geliyay waxay ahaayeen boqortooyadii Soomaaliya taariikhdana way ku wada xusan tahay inay dad geesi ah oo aan libnin oo dhaqan adag oo walaalo oo jecel inay yihiin marka dadkii Soomaaliya sharafta lahaa maanta xagee joogaan way barwaaqada dhulkooda markii la arkay yaa waxaa la ogaaday in Soomaalidu ay leedahay inuu yahay qabyaalad iyo hogaamin xumo labadaas shay baa la soo soo qadaray ina qabiilka laga soo galo oo reer hebel baa reer hebel cadow ku ah waaga hor qofka Soomaaliga intuu ka baxo waqooyiga iyo wuxuu ku tagi jiray ilaa iyo Soomaaliga u dambeeya cuntadiisana miiska u saareed reer u tagay Soomaaliya caana loo geyn jiray cabitaanka xagee ka timid waa la wareysan jiray wax walba rub heli jiray kadibna uu ku tagi jiray يعني Soomaalidu waxay ahayd dad aan qof miskiina oo zakada ku baxdaa la weyn jiray markaas Soomaalidu intay zakadeeda ururisay waxa loo diri jiray Imaaraadka Saudi Arabiya iyo maaragtay dhulka Xijaas yaa la geyn jiray oo la jiray muslimiinta gaajisiinka yaqaan u geeyay Soomaalidu waqtiga ayada neefka xoolaha mayna cuni jirin yani hatta jirkiis mayna cuni jirin inta beerka inta neefka la qoliya inta beerka kaliya laga bixi jiray yani sidoo wadanku qani u ahaa gumaysiga reer Yurub markuu yimid dabcan qabyaaladuna isagay soo raacday runtii waagaas dadka Soomaaliyeed cadaawad la dhaxligay kadib markii calankii Soomaaliyeed la qaatayna maamul xumadii baa bilaabatay yani injustice dadka Soomaaliyeed waxay ku kala qaybsameen cadaalad darro mar haddaad aragtaan meel cadaalad darro ka jirto nabadgelyo la'aan way ku xigtaa sababtoo bini aadamku qabka laba shayba dadku kuma heshiiyaan waa jinsiga oo ah sex wax la dhaho kuma heshiiyaan oo ninkuna gabadha qurux badan buu jecel yahay ninka xataa walaalka u daa ma garanayo suga isla jecel gabadhuna sidaas ilaa ninka u fiican bay rabtaa waa rabitaanka way midna waxa way waa sharafta iyo magaca labada iyada marna lagu heshiiyo laakiin labada iyada si loogu heshiiyo badana waxa way waa in la helo cadaalad iyo garsoor waa in la wada tashto oo la dhaho xeer Soomaalidu waxay lahan jirtay xeer lagu kala socdo xeerkaas hadduu qof walba fair uu helayo oo cadaalad iyo garsoor loo wada dhan yahay la isla wada qaatay lagu wada qanacsan yahay buuq ma dhacayo markaa qof walba nabad buu heli guri walba nabad buu soo hoyan mujrimkii iyo dambiilihii xeerka jabiyana talaabo laga qaaday wax dhiba ma jirayso maxaa dhacday marka Soomaalidii maamuladii gumaysiga markii xornimada la qaatay Soomaalidu lugtu way la weysay runtii cadaalad darradii halka ka bilaabatay marba ka sii xumaanaysi ilaa maanta meeshan aan gaarnay dabin waxana lagu riday aad u xun runtii oo Ilaahay rajaynayay inuu naga saaro laakiin sida aad u adag shaqo adag baa loo baahan runtii in la qabto oo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ay dadaalaan hadii kale laga ma baxayo marka laba shay baa Soomaalidu isku darsantay dhulkii oo qani ah goobtii ku yaalaan istiraatiiji ah iyo koo laga akhrisanayo inay yihiin dad dayacan oo la dhici karo intaasoo wax baa isku soo marka adduunkii oo dhan baa tartan ugu jira Soomaaliya maanta sidii loo bilqaysan lahaa good baa loo qodayaa in marka Soomaali qabriga hata damacii uu sii siyaaday damacii wadamada kale ay kala hayeen Soomaaliya inay hantaan aad buu soo siyaadaya maalin ka dambaysa sababtoo waxay sameysteen hogaamiyaal siyaasiyiin parliamentarian ciidamada niisa kuwa xukuma kuwa booliska Soomaaliyeed ku jira kuwa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliyeed ka shaqeynaya kuwa maaragtay maamul goboleedyo sheeganaya oo shaqadii u qabanaya wadamada iyaga sidii Soomaaliya gacanta loogu gelin lahaa wadamo kale loogu dari lahaa waxay muujinayaan Soomaalidu inayna is xukumi karin inayna dawlad ahayn inayna ciidan samaysan karin inay xeer iyo garsoor ayna yeelan karin xataa constitution-koodii 5 madaxweyne isku soo xigtay Soomaaliya constitution-keedii 60kii baa yaala oo ah dimuqraadi fair runtii
haddii la raacayo kii aadan caddo uu ka tegay ee dimuqraadiga ahaa baa yaala oo si fiican loo qoray oo dad aqoonyahanoo soomaaliya qoreen haddii wax laga bedelayo oo waqtigan isbedelay wax laga bedelo in yar in laga bedelo unbay ahayd mayna ahayn runtii wax ilaa soomaaliya sabab ilaa hadda constitution aan soomaaliya u joogi karta ma jirto laakiin waxaa iska cad in la rabo soomaaliya inayna constitution yeelanin soomaaliya ciidan qaran inayna yeelanin soomaaliya inaynan ciidan military a yeelanin sababto waa aragteen security council maalin walba wuxuu sii dheeraynaya soomaaliya in hubla soo degto lama ogola soomaaliya in ciidan samaysato lama ogola يعني عيدن أميسون بهالك هدجن هوشينا ما قبنا وحو يمد هالك محو دجين سو ما هين عيدن كايسجا إنه وحقوق قلي أو بريتكست كدكتورنتي أو سبب تكون يمد هاي أرجع حسد الصومالي أي خطر كويس جيس كأفريقيا هو أصلا لا دجال مينا alright good ما أرد بحث واي لبتقول وقت كسرت مدن كردن دجموين وقت كسرت ما يك آدان أنت تقريبا ما كسرتان واي الولس ويسان أفرتن تولي كسر